haba khaylinina sadaqada badi saxulaaye haba khaylinina sadaqada badi saxulaaye waa barako aakhira lagu badbaadaye biyo weeyo waxay ka baktiin belalki naareede biriijkii ku yiil jahanaba laga boodaaye baarashuud ilaah ku xidhayo baalalay noqone oo baabkii rayaan xigay adoo buubayaad geliyeen haba khaylinina sadaqada badi saxulaaye waa barako oo aakhira lagu badbaadaye balaayooyinkugu soo socdaa baa laga marine baydkaaga hoosiyo waxay bili caruurta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan halkan waxaan ka salaameynaa bahda reer aldeeq foundation group meel walba dunida ay ka joogaan bacda salaamka bacdi maanta waxaan joognaa dugsigii aldeeq foundation group ee caruurta agoonta iyo dadka walaalaha masaakiinta ah iskugu wada jireen ayaan joognaa maasha allah waxaan soo gaarsiinay deeq lacageed oo adigu min hal dollar oo kala ah ayaan soo gaarsiinay maadaama deeqdaasina ay noo soo dhiibtay walaashina muxsinada ah xaaji xaawo cali cabdulaahi ee ku nool wadanka Switzerland gaar ahaan Beerna deeqdaasi ay ugu talagashay caruurtan ka farxi deeqdaasi ay gabar walaashina oo iyadana muxsinada ah oo mar walba khayrkii wanaaga u taagan oo leeyahay iyadana cananaas ayaa soo dhiibatay waxay ugu talagashay caruurtan agoonta ah maadaama dugsiga aldeeq foundation group lagu hayo caruur fara badan oo ilaa gaaray qiyaastooda 50 ayay jeclaysatay inay ka farxiso iyadoo maadaama ay muraado badan leedahay ay rabto in faatixada loo soo maro loona wada duceeyo si ay maaragtay ilaahay caafimaad shareecan uu u siiyo iyo muraad walba oo markaas ay leedahay insha Allah runtii waa wax aad u fiican qofkii agoon ka farxiya runtii nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii agoon ka farxiya aniga asiga jannada waxaan ku nahay sidaas marka ma sha Allah ilaahay baa mahada iskale waa ku guuleysanay insha Allah bismillaah kariim dhinaca kale hadda waxaan rajaynayaa inaan macalinka u dhiibo insha Allah uu asigana noo duceeyo macalin maxaad noogu duceynaysaa dhammaan bahda reer aldeeq foundation group iyo walaasheen cananaas oo iyadana runtii u baahan xaalad caafimaad insha Allah bismillaah kariim ilaahay baa caafimaadka haya aan u wada duceyno soo ilaahay nooga wada aqbalo amiin amiin waxaan ugu duceynayaa xaajida magacad cananaas oo naga codsatay in caafimaadkeeda ilaahay u wanaajiyo aad iyo aad khayr iyo waxaan ugu duceynaynaa ducooyin fara badan oo ilaahay uu ku roon yahay ilaahay xaggiisa loogu dhowaado ilaahay ha ku liibaaniyo aniga iyo macal ardaydeeda oo kulli ayada ayaan maragtii u duceynaynaa ayadina ducadayna ilaahay ha u aqbalo annagina maragtii ajri xasanaad alla naga siiyo ayadina allah u aqbalo ajir xasanaad aan la koobi karin ilaahay aan naga siiyo الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ما شاء الله معلنكي ardaydiisi sad muuqaalka u dhaxarkayseen way idoo duceeyeen ilaahay ducadaas noo aqbala dhamaanteen ba qof walba muslim oo muraad leh ilaahay insha Allah waxaan kaga rajaynayaa inuu muraadkiisa ilaahay u fududeeyo ducadaasna ilaahayna waa baahda reer aldeeq foundation group oo mar walba khayrkii wanaaga u taagan oo aniga oo samafale Cabdishakuur Ashkar ah sidaas iyo mac salaama